بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوات في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تبارك وتعالى توفيق هنا وفشيو علم نافع يعمل الصالح أنا إلهي تبارك وتعالى إنه كل ميو سعادة أن ماشي فرديننا هنا قدقو كوا فائدة استه ميزانك حسنات كان إلهي إنه صارو بيش رمضان هو إنه قال الله بنتهي طبيني يبري sideen ku qaabilaa sidee lagu soo dhaweeyaa intaysan soo gelin maxaa nala gudboon markay soo gashase maxaa nala gudboon waa arrimo muhiim ah oo loo baahan yahay in la sii ogaado bishu waa bishii ramadaan إلهي تبارك وتعالى وقتي وخير بدن قليي وجاني سوين وبشي قرآن كريم كإلهي سودتشي وبشي إلهي تبارك وتعالى إنه واجبيي تير كم إذا تيرك إسلامك وبشي إلهي وقدح قليي habeenka ugu fadli badan habeenada sanadka oo leelatul qadriya waa bishii dambi dhaafka iyo tawbada waa bil ilaahi tabaaraka wa tacaala uu geliyay dhexdeeda khasaa'is fara badan ahmiyad khaasana leh sidaas daraaddeed ruuxii jaaniskaas ka faa'iideysan waaya oo dayaca sida nabigu sheegay sallallahu alayhi wa alihi wasallam waa ruux mahruum ah mahruumku waa ruux khayr laga qadiyay waa ruux khasaaray ruux ramadaan u soo galay oo aan ka faa'iideysanin oo ramadaan dhamaaday isagoon loo dambi dhaafin الله فوقيو جبريل باساكو هباري نبي جنونا صلى الله عليه وآله وسلم آمين أيوري سأستراد روح خير لقى قديه والروح رمضان وصوق لي كفى إذا سموه إلهي تبارك وتعالى هنا قد يقوى كفى إذا استه انت نبيشي نوسو قلين waxaa loo baahan yahay inaan qaadanno tillaabooyin dhowr ah oo aan bisha ku soo dhaweynayno tillaabada koowaad waa duco alla bari inaan ilaahay weydiisanno tabaaraka wa tacaala inuu bisha nabad inagu gaadhsiiyo iyo caafimaad siday ahaan jireen salafku ridwaanullaahi calayhim bilaha ka horeeya ramadaanka ilaahay bay baryi jireen waxayna weydiisan jireen inuu ramadaan gaadhsiiyo marka ramadaan inaad gaadhaayay oo nolol iyo caafimaad iyo nabadgelyo ku gaadhaayay waa nicmo weyn inagoo ogsoon dad fara badan sanadkii tegay ina la soomay bisha goobjoog ahaa maanta inaan jaanis labaad la siinin oo ama ay dhinteen ama duruufo adag ay ku jiraan oo u saamixi waayey inay bishanna ka faa'iidaystaan marka inaan ilaahay barino tabaaraka wa tacaala allahuma ballighna ramadaan وبارك لنا في شعبان qodobkaasi waa qodob
qodobka labaadi wax weeye bisha hadii ilaahayna gaarsiiyo inoo dhalato iyadana meesha duca ku jirta inaan ilaahay barino tabaaraka wa tacaala nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bishu markay dhalato wuxuu ku ducaysan jiray ummadiisana u jideeyay inuu yiraahdo Allahu akbar اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى إلهي باوين إله بشا وحال نوغر لسا إيمان إي أمان والله كلام أربن أمان دول كنغا ديغانك إيشان كنا الله إن الأمان كهلو naftanada iyo xoolahanaga iyo inaanu amaan u helo iyo iimaan oo inaan aqeedo sax ah iyo iimaan sax ah aad nasiiso islaamnimo oo inaan ilaahay u hogaansana iyo nabadgeliyo yaani aafaadka laga nabadgalo oo jidhka iyo caafimaadka loo nabadgalo ilaahay taas bisha noogu dhali waxa intaas oo dhan ka muhiimsan in aad nawaafajiso waxa jeceshahay ilaahu bishan waxa jeceshahay nawaafaj oo wuxuu alla jecel yahay muxuu yahay waa wixii khayr ah waa iimaanka waa cilmiga naafica waa amalka saalixa waa ilaahay daacadiisa وخيرات كاس إلهي كود وينيا إله خيرات كالنوافج هذا جعل السماين تودا نوافج مركي بيشو دلتنا سيدا سايدنا في عن اللي قد عيسته وحكى له صدحات هذه بيش إلهي نبد نو غارسيو إن سيدو كاليتو نعمة دا سيلغا الشكريو وأدو أركتو إلهي إنه وحقالي يكو قارسيي وبالتالي إنا تراد الحمد لله قلبي قاقا أيكو إنا تجانس كان إلهي كسيي عربك آتك الشكر دو حبناها أقول أدي يرقروبان سيدي أي النعمة نوقف إيديسان لها شكر قاز هذا اللطي ما دو قلبي يحبناها يعربك له إلهي تبارك وتعالى خير بدن بكو فريا بركات فر بدن بكو فريا لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد مرك الشكر قاس وحو تلماميا إناد نعمة قيمة هذا قراتي إناد إلهي كسيه تبارك وتعالى كو قنصتي أيضا قضب كاسوي قضب كشنادي وحوي أما أفرادي الفرح والابتهاج بقدوم شهر رمضان إن بيشا دلشدة يا إنور دلتو أن كفرحنا وأن بشهري سنه بحيالي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بيشو مركي دلتو صحابتي سوق بشهرين شري جاءكم شهر رمضان بشي رمضان با إذين تمت مركاسو خيرات كذا يا خصائص كذا وشيء يجري النبي صلى الله عليه وسلم سيدس دراديت إن نكون فرحنا عكسك ضد بدن وبيشو مركي صوت دواتها بكرنا حياتنا ضد حليس كتاي باتشنا وانا ضدك انت بدن شهواتك الدنيا ده كوفو قاعدين oo cuntada iyo cabitaanka iyo shahawaadka adduunyadu ay jiidatay oo qaadatay dadkaasi waxa dhibaya inay bisha iyada Ilaahay tabaaraka wa tacaala wixii naftu baratay ay uga go'aan oo u daayaan taas dhibayso saas daraadeed marka soo bishu soo dhawaato culays bay ku tahay inta ay joogtana waa dhibsanayaan sidaas ma aha ruuxa muuminka ah ruuxa muuminka dhinac kale uu ka fiirinaya dhinacu ka fiirinaya waxa weeye waa masraca aakhira waa beer aakhira waa wixii jannaad ku gali lahayd ilaahay dambi dhaaf kaga heli lahayd
duunkaaga iyo aakhiradaadaba ku barakoobi lahayd xataa caafimaadka jidhkaaga caafimaadkaaga xataa aad ku heli lahayd weeyaan sidaas daraaddeed in aynu bishaaraysanno inuu ku faraxno bisha gaadhitaankeeda dii ilaahay tabaaraka watacaala ina gaadhsiiyo qodobka xigay wuxuu yahay oo bisha intaynan dhalanin loo baahan yahay inaynu ku dadaallo taqwiyatu liimaan wa tajdiidihi inaynu iimaanka xoojinno iimaanka cusboonaysiinno asbaab buuna leeyahay iyo wasaa'il buu leeyahay lianna iimaanka qalbigeenna ku jira dabcan carabkuna ku dhawaaqayo xubnuhuna samaynayaan oo practice garaynayaan iimaanku waa injinka inugu riixa khayrka inaad taacada samayso salaada si fiican u tukato khayrku kuu fududaado soonka aad soonto sadaqada bixiso wanaagga inaad la timaado waxa kuu sahlaya ee keenaya waa iimaanka iimaankaagu hadduu daciifo camalkaaguna waa daciifayaa laanna camalku waaba qayb iimaanka ka mid ah haddii iimaankaagu xoogaystana camalkaagaa xoogaysanaya waxaad adkaysi u yeelanaysaa khayraadka samayntooda bal waad macaansanaysaa oo culays kuguma noqonayaan saas daraaddeed baa allah tabaaraka watacaala markuu ka hadlayay munaafiqiinta alla wuxuu yidhi tabaaraka watacaala walaa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun markay wax bixinayaanna iyagoo kahanayay bixiyaan markay salaad tukanayaanna iyagoo wahsanaday tukadaan salaada waxay yimaadaan iyagoo cag jiidaya iyagoo wahsanaya iyagoo caajisan iyagoo rafaadsan limaada lianna iimaankii cibaadadan u macaanayn lahaa baan jirin waa gaal uun tuka is yidhi waaye muxuu uga dhadhami cibaada u dhadhamaysa laanna iimaan ma jiro iimaanku marna wuu xoogaystaa marna waa daciifa aliimaanu yaziidu wayanqus yaziidu biالطaaca wayanqusu bilmacsiya marka inaynu iimaanka kobcinno oo iimaanka siyaadinno wasaa'il iyo asbaab badan buu leeyahay waxaa jira waxyaalo badanoo iimaanka lagu kobciyo munaasabaad kale aan kaga hadalay ama muxuu ahay culimmadu ay ka hadleen saas daraaddeed iimaankaagu inuu xoogaysto macnaheedu waxa weeye bisha ramadaan inaad uga faa'iidaysato sida ugu fiican inaad uga faa'iidaysato sida ugu fiican wey macnaheedu oo khayrkii kuu dhadhamo taacadii kuu dhadhanto sadaqadii kuu fududaato soonkii kuu fududaado salaatuleylkii kuu fududaato iyo taraawiixdii khayraadkii inay kuu fududaan waxaa keenaya inuu iimaankaagu muxuu ahaayey uu xoogaysto ood iimaanka cusboonaysiiso marka nabigeennu inoo sheegay sal alla alay wasalam ina aliimaana layakhlaqu fii jawfi axadikum kama yakhlaqu athawb iimaanku qalbigiinnu ku duugoobaa siday maradu u duugowdoo kale fas'alu llaha an yujadida aliimaana fii quluubikum ilaahay weydiista inuu quluubtiinna iimaanka ku cusboonaysiiyo marka iimaanka in la cusboonaysiiyo iyadana waa qodob muhim ah si aan ugu diyaargarowno ka faa'iidaysiga bisha ramadaan waxaa kaleetoo qodob ah oo iyadana muhim ah alcaziima alsaadiqa inuu ruuxu la yimaado go'aan adag doonitaan dhab ah doonitaan dhab ah oo khayrkaa ilaahay uu siinayo tabaaraka watacaala iyo wakhtigaas jaaniskaa soo socda inuu ka faa'iidaysto waa inuu niyad dhab ah ula yimaado alcaziima asaadiqa haddii ilaahay tabaaraka watacaala qalbigaaga uu ka arko inaad khayr doon tahay doonidda khayrkuna dhabkaa yahay oo go'aan dhab ah aad la timaado qalbigaagaasuu ilaahay tabaaraka watacaala arkayaa waxa qalbigaaga ku jiruna wax kugu siinayaa faidaa cazama alamru falow sadaquu allaha lakaana khayran lahu ilaahay haddaad run kula dhaqanto ood niyo saxa la timaado waxaad rabtay buu kuu xaqiijinayaa man sadaqa allaha sadaqahu ruuxii ilaahay run u sheega oo run kula dhaqma oo qalbi dhab ah iyo daacadnimo ilaahay tabaaraka watacaala ula yimaada
إلهي وحو الربيب الله تبارك وتعالى وحقيقنا يا سيداس درادت بنبينا صلى الله عليه وسلم دعويكم إن بروحها كم ذها اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد إله وحكو يدي سنة إن أرنك كدل سقناذو ودينت يا إيمانك يا طاعة إن دائمه إن أنا كل حنين إن أنا كتجين إن أنا كجابين إله يقصك قضب كلامنا والعزيمة على الصدق والعزيمة على الرشد هجاج يتوسيد خيرك إن قرآن وياش ولا هذا الشيء وليه هي الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وجماع الأمر واحد شيء مركز دونيس إن الحقيقة صلاة هذا أصله ومدك بعد إن النية يو دونيتان رب الله تبعده ومد لبعد إن هذا النية دي يدونيتان كي كان قنين أد كأت كيسته وأد كسقنات إلى واحد ربتي أد كجاره لبعد متكود هذو ضعيفه واحد ربتي مجاري كرت ساس دراديد الله تبارك وتعالى الدومدي سماش وكفيري وقلبي إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إلهي قلبي إنه فير عمل كيننا وفيرنا إن يعلم الله في قلوبهم خيرا يؤتهم خيرا مما أخذ يؤتكم خيرا مما أخذ منكم هدو إلهي قلبي إن خير كوجيه وحي اللي إذن كقاده وحكى في عمبو إلهي إذن سينيا لكن وقورمه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا هدو قلبي إن إلهي خير كوجيه هو هدي دونيتان يعني الصادقة يا عزيمة ربع هدو إلهي قلبي إن كوجيه وح في عمبو إذن سينيا سيداس دراديد وحلو باهي إن أي تلقل كانوا نقضوا إن نيدين النقطة قلبي كانوا ديار قروبه كفائديسك خيرات كبش نحيا الله إيو إنه سامي أوقف عنك قاضي النبي بإذن الله تبارك وتعالى العزيمة الصادقة هذا لبع تهي وأن قان كاغا قلبي قوسن قونين ورب أهين يعني وحوي مالمو بعد لغاية بينات وحوجا أردو كدبنا أو شادو ورمانيس قدم كحجاي وحوي هاي واللبة هي رمضان كهر إن أينو محوها هاي لني ما إنه وجودي أرجعونا بيشة كسر دوينه وحويان التخطيط المسبق والتنظيم الأوقات إن أينو أنت بيشو سوقلين أينو النظام سنة وقتها قرشة بلان نسمي سنة الدنيا دي بينو دح جوجنايو مشاقشي الدنيا دا إنو غفران إيضا مشاقشي الدنيا دا إنو غفران يهم بارهمنا هدانا تشانس كنينا كفايديس سيكون دحي كرتا وحيكون دحي كرتا إنو الروح لي قرشة لي إنو بلان لي إنو نظام لي إنو نظام تجسدو جدول تجسدو وحل إلى هذا محوها هاي برنامج عملي وآد وقفا إذا سنة بيشة وإن الليضة هدي آذن وح نظام سنين أوذن بلان سمي سنين أوذن قرشلة هين آد بيشة وقفا إذا سنة كلية وحي كل ما نيسا وقتي كقول رافع يا خير آد تعش هاي بس خير كي واتعش هاي قرآن كينا داخل واتعش هاي صدقة دي آد بحثة واتعش هاي هوينكي صلاة الليل كي إن أنت كقاعدة واتعش هاي لكن وحاكو تشيدنا يا مشاغشي كله منا هذا النظام اسكوا فتشيسو ما ذن لا إيمانين وحاكو مركو وحكو دمانة يا أمنيات بكو دمانة وان شعلها هيو يا وان ربع انت أنا وحوما ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب سيدنا ان شعلها هي وحوما واتعش هاي واتربتها ودونيسا لكن وين الله تمادو صببتي يا طريقي أتكو حقيقي لهيد مثلا تصالح داني نسيو وحد ربطها بشهر رمضان إن الدور قور القرآن كرم يسو طيب والنية في عنه لكن هذا ندشنين جدول كي برنامج كي أتكفل لهيد وحو إسكن قانون شيء أدونيس لكن النظام لهيد سيدا أتكو حقيقي سوي أذكته وإن النقطة
quraanka waxaan dhamaynayaa bisha ramadaan 5 goor lixda bariya ugu horeysa hal mar baan dhamaynayaa lixda bari waxaan ku dhamaynayaa salaada subax kadib intaasoo juz baan akhrinayaa tuurkii intaasoo juz baan akhrinayaa maqribkii cishaha intaasaan akhrinayaa habeenkii intaasaan akhrinayaa jadwalka markaas saa u dejisato haddana waa inaad iltizaamto waa inaad ku taqayudo oodan jabinin inta suurtagal ah wixii marka waa ku habaysan yahay jadwalkaad raaci lahayd waa ku degan yahay waqtigii waa ku nadaamsan yahay sida inaad u ilaaliso hadaad isku daydo markaasi waxaad rabto dhan waa fulinaysa inaad sadaqa baxsato rabtaa maalan sadaqadu bisha ramadaan waxyaalaha ugu fiican bay ka mid tahay inaad sadaqa baxsato rabtaa tayib waxa kugu furan baahidii adduunyada wixii aad baxsan lahayd aaway haddaadan jadwal u samaynin oodan sii diyaarinin oo qorshihii aadan u samaynin wixii aad baxsan lahayd waxay uun dhammaan bishu adigoo oo leh waxbaan baxsan rabaa jaanisku waa ku dhaafaya marka wax weeye bini aadamku kama soo hadho qorshe kama soo hadho bini aadamku plan kama soo hadho marka inaad plan samayso aad khayraadkan ku fulinayso waa laga maarmaan umrad rabtaa bisha ramadaan inaad soo umraysato waa inaad qorshihii umrada aad sii dejiso ramadaan ka hor dhaqaalaheedii safarkeedii shuruudeedii waa inaad sii dejiso sida adduunyadeennaba aynu plaanka ugu samaynayno iyo qorshaha ugu samaynayno ya akhiradeena ka mudan marka jaanisyadan oo kaleeto waxay u baahan yihiin in la sameeyo takhtiit musbaqa iyo tanziim waqtiga inaad nidaamiso jadwal u samayso barnaamij amali ah oo joogto ku ah inaad leedahay oo aad ku fushanayso khayraadkii ku qorshaysnaa inaad bisha ramadaan la timaado qodobka xiga ay wuxuu yahay تعلم الأحكام الضرورية إن برنو بشو إنتيسن سوغلين أحكام تلقى مارمانك كسابسن عباداتك أن سمينين هدي آدم برنين وذا فقه كذا يلانين وذا فهمين وحد عيسى إن الدداشو دذلك أقول ونقضه هل بعد لولس لأنه وحوي عبادته هدينا كسل سنين أقوني علمي والديدي إلهي كأقبل ما يو لأنه وحي خلاف يساء هديجي سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء هدو سنة النبي خلافنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والوجوس الديدية سيدا بعد عبادات كأجوا فتشين كرتا سنة دي طريق النبي صلى الله عليه وسلم هل قضب وين هذا قانت هذا لا ده وين هذا قانت هذا لا جرنا يسوع شيء والبيش هذا جيس وين جرنا يسوع شيء والبصاد السمينيش وين هذا وحي أقاني فقه أولى هذا هذيك لو حد عيسى أم دعي كرتبة إن تدال بدن أد بحسه تدال كأجونا ونقضه مد خسارة النبي كان حكسه صلى الله عليه وسلم إنه يلي رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ضد بدن الصومن صوم كودا وحبا كيلمايان اون يكاچا بس ضد بدن وهبينكي سلاد تاغن تاغنيدودا كهلمايان waxaan soo jeedahay ajir mala dad badan ba cibaadeysanaya laakiin cibaadadoodu khaldan tahay si ayna kaaga khaldamin oo cibaado sax ah وميزانك حسناتك كوغش وجنك كوغش وعذاب كغا بدبادو وديله رضيسا كوغادو سي اي عبادتاadu u noqoto iyo waxaad sameeynayso waa laga marmaan inaad aqoon u yeelato waxaad sameeynayso marka cilmigu waa laga marmaan saas daraadeed baa wax walba laga hormariyay wax walba ayaa laga hormariyay fa'lam annahu la ilaha illa allah al-ilmu qabla al-qawli wal-amal ilmigu isaga ka horeeya hadalka iyo ficilka labadaba intaadan ku hadlin baro intaadan akhriin baro intaadan samaynin baro intaadan ku tilaabsanin baro intaadan cibaadaysanin baro intaadan soomin baro intaadan tukanin baro aqoontu waa laga maarmaan fa'lam annahu la ilaha illa allah saas daraadeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam ruuxa khayriyadiisa wuxuu ku xidhay فهم كيس الدين
man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ruuxuu ilaahay khayr la rabo diintuu fahansiiyaa lanna fahamka diintaba asaas u ah wax kastoo ilaahay loogu dhowaanayo tabaaraka wa tacaala wax kastoo ilaahay kuu dhowaynaya fahamka diinta asal u ah xataa iimaanka iyo caqiidadu haddayna cilmi ku salaysnayn socon mayso faclam annahu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah haddayna cilmiyaysnayn socon mayso ya laa ilaaha ila allah waa inay cilmiyaysan tahay salaaddii waa inay cilmiyaysan tahay shay walba waa inaynu ku salayno aqoon ku salayno waay saas daraaddeed bisha soo socota ramadaanka iyo sidaynu uga faa'iidaysan lahayn waa inaan aqoonteeda leedahay haddaad akhrin karto akhri haddaad leedahay awood inaad akhrido kutubta wixii laga qoray akhri taalaco haddaadan akhrin karaynin dhegayso wax badan baa laga duubay wax badan baa laga yidhi dhegayso haddii ayna suurtagal ku ahayn dadaal kale la imow oo weydii wixii kaa qarsooma wixii aad garan weydo weydii su-aasha kaalmayso fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun sidaas daraaddeed cilmiga iyo fiqhiga axkaamta bisha ku saabsan waa laga maarmaa ruuxa aqoonta leh waxaa laga yaabaa camal yar oo aan culays badan lahayn in uu la yimaado oo mid maanta dhan dadaalahayay inuu ka fadli badnaado laanna wuxuu garanayaa meesha uu ka qabanayo uu garanayaa kii nabigeenu soo maray sal alla alay wasalam ee haweenka yani islaan wardinaysa oo ku soo noqday iyadoo meeshii fadhida wardinaysa oo uu ku yidhi kelimaad baan idhi buu nebigu sal alla alay wasalam waxaad maanta dhalhayd oo dhan ka fadli badan marka meel gaaban buu ruuxu hadduu aqoonta leeyahay meel gaaban iyo jid gaaban buu jannada iyo wanaagga ku gaari karaa hadduusan aqoonteeda lahaynna dariiq dheer buu marayaa waa rafaadayaa waa kadeedmayaa waxaana laga yaabaa wixii uu socday inuusan gaadhin inuusan helin baa dhici karaysa saas daraaddeed si ahaanteedaba waa inaan ku dadaalno barashada diinta bishan inagu soo foodlana gaar ahaan waa inaynu axkaamteeda baranno waxay yidhahdaan culimmadu cilmigu waa laba qaybood mid fardu kifaaya xukumka cilmiga barashadiisa diiniga cilmiga diinta fardu kifaaya iyo fardu cayn fardu caynku waa midka ruux kasta laga rabo dalabulcilmi fariida calaa kulli muslim waa noocee cibaadada iyo camalka marka aad samaynayso cilmigiisu waajib buu kugu yahay haddaad doonayso inaad ganacsi gasho ganacsiga cilmigiisu markaasuu kugu waajibaya haddaad rabto inaad xaj aado cilmiga xajka ku saabsan iyo axkaamtiisu markaasay laasim kugu noqoneen intaadan samaynin baro soonkii markuu yimaado axkaamtiisa waa in la barto wahaakada shay kasta marka uu ruuxu galayo waa inuu aqoonku galo waay qodobada muhimka waxaa ka mid ah oo bishan intayna soo gelin la doonayo inuu uu sii diyaargarowno ama ku soo dhaweyno waxa la yidhaahdo at-tawba as-saadiqa min jamiic ad-dunuub inaynu toobad dhab alla nimaadno dunuubtoo dhan aan ka toobad keenno toobaddu macnaheedu wax weeyaan shuruudeeda markay wadato ama shuruudeedu inaad dembiga aad ku jirto ka tagto inaad go'aansato inaadan ku noqonayn in wixii horey kaaga dhacay aad ka qoomamooto xuquuq bini aadam hadday tahay waa inaad guddo ama xalaashato towbad dhab aynaynu la nimaadno towbaddaasi mar walba waa u baahannahay mar walba laanna mar walba dembigeennaa badan kullu bani aadam khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun mar walba waa khaldamayna ma jirto maalin aynaan dembi gelaynin waa yarya sidaas daraaddeed towbadda mar walba waa u baahannahay bisha ramadaan markay soo dhowdahayna si khaasa waa usii baahannahay allah tabaaraka wa tacaala liibaanteennuu ku xidhay watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun mu'miniintiiyow ilaahay u soo noqda towbad keena
dembiyada ka soo laabta si aad u liibaantaan la'allakum tuflihun wad liibaanaysan marka liibaanteena marka ku xidhan waana sifaadka dadka muuminiinta ilaahay siiyay والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله وحيري مؤمنين متقين محسنين تدتك وناكسا وكوا مركي الظلم سميا فاحشة بفولح مركي سميا أما النفتوض أي ظلميان وخلط قلان إلهي بحسوستان ذكروا الله إلهي بحسوستان عظمتي سي حسوستان وحي حسوستان عقوبتي سي حسوستان حسوس باقش إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون مركو الشيطان تابتو والشيطان حمان قليه والدم بكردو وي حسوستان يعني وحي حسوستان خلط كي قالين ويسقرتان ويسحسوستان فإذا هم مبصرون مركز أركيا وحي أي قالني خلط كبي أركيا مركا خلط كودي مركو مغضنة وإنه شيطان ضوف صدي وخلط قلي مركا كبر أروقان محي سمينيا ويصون قنيا المركا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إلهي بيدم بداف ويدي سنيا مركا إنين صون لابنو إلهي أصون قنو دم بداف ويدي سنو حلي والباء حالد والبا دنبي كستا laga toobad keeno ku aadan ogeyn iyo ku aad og tahay nabigeena wuxuu dhigi jiray sallallahu alayhi wasallam ilaahu dambigayga ii dhaaf midaan ogahay iyo midaan ogeyn ba ii dhaaf buu nabigu dhigi jiray sallallahu alayhi wasallam laana intaynaan ogeyn baaba badan ba intaynu galay iska halmaanay laakiin diiwaanka ku yaaloon yaani la halmaamin ya aad u badan marka wixii hore inaan ka toobad keenno safxa cusub inaynu la bilowno Allah tabaaraka wa taala bishan barakaysa safxa cusub maxay keenaysaa taasi waxay keenaysaa marka toobad la timaado toobadu waxay keenaysaa qalbigiiba sifaysmaya qalbigiiba daahir noqonaya qalbigu markuu daahir noqdo xoog buu yeelanaya wuxuu u xoogeysanayaa daacada wuxuu macaansanayaa daacada khayrkii baa u dhadhamaya waana midda nabigu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam markuu fasirayay aayadda quraanka kalla bal raana ala qulubihim ma kanu yaksibun nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam adoonku markuu dambaabo oo uu dambi galo hadduu dambigiisa iskarto oo soo noqdo oo ilaahay xusuusto oo dambi ka toobad keeno qalbigiisa waa la sifaynayaa raadkii iyo xumaantii dambigu qalbiga ku reebay baa laga sifaynaya daxashii baa laga hagaajinaya wasakhdii baa laga dhaqaya hadduu dambigii ku noqdo markaasi wax weeye dambigii wuxuu noqonayaa marka madow iyo wasakh qalbiga fuusha oo ku fida oo isagoo dhan wada daboosha taasaana laga wadaa kalla bal raana ala qulubihim ma kanu yaksibun marka waxa loo baahan yahay in uu adoonku mar walba soo laabto دمداف ويديست هدي قلبي قاو صافي النقضة أو وسخذة يذنوبته يوحصارني أي ككعضو مركز واحد أركيسا هذي هو القرآن كي معان سنية هذا الصوم كي معان سنية هذا الصدقة دي معان سنية هذا أخلاق ذا دوانك سنتي هذا آخر وجهه الدنيا دينا كلنا نقطة وحن معنا لهين هذي هو إسبدلي بعد أركيسا لأنه وحوي بني آدم كماشة واي ماشة خطرته أما هجاجيسو كيمادو أما هلوجيسو كيمادو وقلبك ويسيد النبي جنوشة صلى الله عليه وآله وسلم مرك التوبة سوى مهم إن هذه الله تبارك وتعالى أصلا نقطه توبة كنته توبة داسي توبة النصوحة شروط هذه وضعته هذه كلجة إن هذه الله تبارك وتعالى أتوبة كنته أيضنا وحي كم التهي وحيالها إنه كالمينية وبيشن بركيسن كفائدة سجدة سيف يعني لوجا فائدة سنة إنه جو كالمينية كمتها التوبة الصادقة توبة ضبعين إنه لن يمانو إلهينا أصلا نقولنا تبارك وتعالى وحكم ذا نبي جنو ننجد صلى الله عليه وسلم بيشا حتى أن كتير نوا شعبان وإلى تبنية بري نوجل لابنتك تقريبا نبي جنو صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين
من حديث عائشة بلها رمضان مركا لقى مات بش الصون كيسو وقب بدنيا هي وحي أهي بش الشعبان بيه عائشة وحي لها هي كان يصوم كله كان يصومه إلا قليلا شعبان ودم صومي جري ترى وحي تيري شعبان وصومي جري إلا إن يرمويه كل بمعنى وحلقة وضع بمعنى الجل بحلقة وضع يعني بش انت هذا بدن وصومي جري وهذه النبي صلى الله عليه وسلم علماء waxay leeyihiin bisha Ramadan bisha Shacbaan soonkeedu waa nooc tababar ah waay ruuxu wuxuu u tababaranayaa bisha Ramadan soonkeedii baa loo tababaranayaa laana ruuxu hadduu Shacbaan soomo inteeda badan asagoo soonkii la qabsaday oo naftiisu baratay ayaa Ramadan soo galaya culays kuma hayo marka soonka Ramadan culays ku noqon maayo وتمرين بيلين علماء قاركود ونوع ليليد نفتي الله ليليو إن رمضان كسون كيسا أينن أتكيس كو أتكاني ورك الشعبان إلا الصوم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بكسو انتهي وحجر حديث ده هي إذا انتصف رمضان شعبان بديلها بيش شعبان هدي نس أي نقطه هالسومنا حديث كاسس حديث ولا اسكو هيستا أحاديث كله وكحك بدن يونكهر إيمانيا أو كم إذا حديث كان عن شيء إن النبي يقول صلى الله عليه وسلم محوها هاي بيشا شعبان بدن كده وصومي ترى إلى عائشة أو كم إذا حديث كصحيحين ككوي من النبي يقول صلى الله عليه وسلم رمضان هكلاهر مرينا مال أما اللي ببري صون كودا هكهر مريننا إلا الروح صون عادة لهان شري مويه بمعنى مركي بيشو دلان ربطو مالين كلابنته إنا تراهدو ما أنت نسوميه أما اللي ببري كسلابنته محوها اللي بدن بري بان سوميه هورينا ماذا نصو سومين عادنا كوما أهين أو السنين آد صونتية خميس آد صونتية وعادة كو أهين كوما هاقاقين صون آد بلابي صون لبدا بري مالين كرش رمضان كهر رهيا أبال الديدي محال لقم فهمية انت وحي كهر رهيا اللي سومي كري معناه هذا وحويان على الصحيح وحوي ولا سومي كرا بيش شعبان أردن انت هذا بدن ولا سومي كريا سيدا حديث صحيحة النبي كغسوغ صلى الله عليه وآله وسلم تاسينا وتببر ولوسي تببرنيا عيوبها انتهي وجهد خير كآد كأوفرها بدن بيشها بركيسان إن أينو اسكو دينو إن أينو انت أوفي عنك قادم طبعا خير كوا فربدية خير كوا فربدين خير كفرها بدن مدول بوحكو درسو مدول بوحكو درسو النبي صلى الله عليه وسلم صحابتي سمركو كويري محوها هاي عد سيارته وريا ما أنت عد سيارتي وريا ما أنت محوها هاي جنازة راعي وريا ما أنت سمي النبي مركز كذب صلوات ربي والسلام عليه روح انتاسي هل ما لما ودا يماتو الا جنده قلاب النبي صلى الله عليه وسلم marka isku day kulli inaad mid walba wax ku darsato kii aad janno ku gali lahayd Allah garan kulli haday ku ururaan waa khayr kordhay waay saas daraadeed isku day sadaqadii haday tahay muxuu ahay quraanka akhriskiisi hadii ay tahay soonkiyo isaga laazima haddii uu yahay dadka oo muxuu ahay bini aadamkii khalqiga la anfaco haddii tahay diinta la faafiyo dadka wax loo sheego haddii ay tahay muxuu ahay salaadii taraawiixda haddii tahay khayraadka umradii haddii suurtagal ku tahay khayraadka faraha badan muxuu ahay inaad kulli wixii aad ka heli karto aad ka qaadato marka juhdi iyo dadaal siyaada inaynu bixino ayaa walaalayaal inooga baahan yahay bishan barakaysan hadii ilaahay nabad inuu gaarsiiyo inta ka horeysana sidii aynu uga faa'iideysanay inaynu isu diyaarino qayb waxa ka isu diyaarintaasi ruuxu haduu mashaaqil adduunyo leeyahay adduunyo badan baa inugu furan inuu intii uu adduunyadiisa koobi karo bishan ramadaan inuu koobo soo ururiso saynan ku mashquulinin inaad soo ururiso inkastoo adduunyada lafteeda
haddii niyada la hagaajiyo niyadu haddii la hagaajiyo adduunyada lafteedii baa waxay isu bedeli kartaa camal aakhira isu bedeli kartaa haddana maca daalika camalkii baa kala fadli badan inaynu marka isku dayno insha allahu tacaala in aynu wakhtigeenna intiisa badan aynu taacada gelino waxaa jira khayraad laga yaabo inay ayna idinla muuqanin inay taaca tahay haddana maca daalika ilaahay agtiisa daaca ka ah hadday saxaabada iyo salafku ridwaanullaahi calayhim hurdadooda ilaahay ugu dhowaan jireen sida ay istaagga ay habeenkii salaada u istaagayaanba u xisaabsanayaan bay hurdadana u xisaabsan jireen ajir ka helayaan haddii nabigeennu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam wa fii budci axadikum sadaqa ruuxu inuu shahwadiisa xalaal ku guto ajir buu ka helaya waa sadaqa salawaatu rabbi wasalaamu calayh in aad muxuu ahaay dadkii soomanaa aad afur u diyaarisaan inaad jikada u gashaan in aad muxuu ahaay yani waxa waa nafci waay si ahaanteeda haddaad niyad wanaagsan ula timaadaan ayadaa wax badan ka fadli badan leanna waxay gelaysaa ruuxii ruux sooman afuriya ajirkiisoo kaleu leeyahay leanna ruuxii soo diyaariyey jikada u galay cuntadan kariyey ku rafaaday kii bixiyey waa uga dadaal badan yahay saas daraaddeed khayraad badan baa meelaha ku jira oo yani wax aan la sahlan karin laakiin waa inaad ku talagasho niyad inaad ula timaado inaad niyeysato inaad cibaado ku jirto ilaahay ajir kaga raadinayso xataa adigu diyaarso carruurtaada u diyaari dad kale u diyaari muddada aad ku jirteed muxuu ahay ama jikada ku jirto ama hawsha aad ku jirto niyad wanaagsan haddaad la timaado shaki ma laha iyada lafteeda cibaada bal waa cibaado weyn nabigeennu wuxuu sal alayhi wasallam xadiis saxiixa wakiila rasuulku sal alayhi wasallam khayru nnaas anfacuhum linnaas dadka waxaa ugu khayr badan ruuxa dadka ugu nafci badan inaad khalqiga anfacdo xoogaaga ku anfacdo cilmigaaga ku anfacdo caqligaaga ku anfacdo xoolahaaga ku anfacdo inaad khalqiga ilaahay anfacdo waa cibaado weyn cibaado ilaahay tabaaraka wa tacaala loogu dhowaado cibaadadka ugu waaweyn bay ka mid tahay marka ilaahay tawfiiqda hayna waafajiyo bisha barakaysanna maalmuhu ka laaban yihiinna ilaahay tabaaraka wa tacaala nabad iyo caafimaad allah inugu gaadhsiiyo haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala nabad iyo caafimaad inugu gaadhsiiyana waxaan weydiisanaynaa allah tabaaraka wa tacaala inuu na waafajiyo wuxuu jecel yahay oo bishaa dadka ka faa'iidaysta faa'iidada ugu badan ka qaataay in ilaahay tabaaraka wa tacaala inaga dhigo inooguna dembi dhaafo ayaan allah weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala inaga dhigo bishaasi khayrka iyo wanaagga aan ka qaadanayno tii aan jannada ilaahay ku geli lahayn cadaabka ilaahay kaga badbaadi lahayn ilaahay ridihiisana tabaaraka wa tacaala aan ku gaadhi lahayn inuu ilaahay inooga dhigo ayaan weydiisanaynaa adaa billahi tawfiiq wasali allahuma waslama wabaaraka calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi waslem سائلكن wuxuu leeyahay ruux aan dayn ku lahaa dayntii zaka ma u niyoon karaa intaan u cafiyo zaka ma ka dhigi karaa jawaabtu waxa weeye waa maya dayn ka maqan zaka loolama niyoon karo maxaa yeelay marmarka qaarkood haddii sidaa la yidhaahdo ruuxu wuxuu soo saari kari waayey oo uu ka quustay buu saka ka dhigayaa saas daraaddeed culimmada badankood waxay qabaan dayn maqan inaan saka laga dhigi karin wixii gacantaada ku jira jeebkaaga ku jira ayaad sakada ka bixinaysa
سؤال شيخ هلا أنا قاعد صاحب اللي يقولها دو صاحب اللي يقول صاحب حسب مين بسم الله الرحمن الرحيم horta soonka la isku leeyahay ee qallaha ah in la dib dhigo ilaa soon kale soo galo adoo qallayn karo soomi karaya waa khalad Aisha ummul mu'miniin radiyallahu ta'ala anhuma waxay leedahay soon baa iga tagi jiray oo lay qalla ahaan la igu lahaa sanadka inaan soomo iyo suurtoobi jiray nabigoo joogita nabiga dartiisa sallallahu alayhi wasallam yaani maadaama nabigu joogo isagoo nabigu joogo haddana inay soontay dhibsan jirtay markaas shacbaan baan soo gaari jiray bisha ramadaan ka horeysa bishaasaan soomi jiray bishaas ayaan soomi jiray waana bisha nabigu u badnaa soonkeeda sallallahu alayhi wasallam yaani markuu nabigu soomo bisha ayaduna qallayn jirtay culimadu waxay ka fahmeen xadiidkaas in la dib dhigo qallihii ilaa ramadaan kale soo galo waa qalad allahumma haddii uu ruuxu cudurdaar leeyahay oo dibdhigaasi dan kaliftay ay jirto markaa dambi ma leh laba gooraba waxaa loo baahan yahay wixii kaa tegay inaad qallayso bisha ramadaan markay soo gasho iyada soon markaad soonto kadibna si degdeg waxaad u qallaysaa maalmihii lagugu lahaa ee soonkii hore kaaga hadhsanaa si degdeg u qallee raashin ma la raacinayaa mise maalmihii qallahooda bas laga rabaa waa mas'ala khilaafiya fuqahada dhexdooda imaam shaafici imaam ahmed ayaa waxay qabaan haddii ramadaan kale kugu soo gaadho raashin baad ku dari qallaha raashin baad raacinaysaa laakiin آثار صحابي وحاسي عسكنيان ملأ دليل النص مرفوعة آيات قرآن أما حديث النبي مجره سيداس دراديد سيدا صحدا أما حوق بدني وحوي وحلقة بهي قلة وبلغة الربا إن قليسو حديث سبب الآن صون كدب ديكتين إن قدرت التوبة قدرت هذه صون كلا جارسي سيدون عذر دار لهين وصومي كره تانا marka waxay u baahan tahay inaad Ilaahay dambi dhaaf weydiisato oo toobad ku darto wallahu a'lam gabadha waxay leedahay markii lii meherinaay guurkeedii magac ugu qoran kibaandada ayaa lagu meheriyay magacaasna magaceeda saxda ma aha marka ayada magaceeda iyo magaca aabaheedba ama magaca aabaheed ayaan saxsanayn marka meherkaas ma saxay ayada miyuu ku dhacayaan mise qof kale magacan kibaandada kuugu qoran kanna waa lagu yiraahdaa kii kalena waa lagu dhahaa labada magac waa iska midna waa kii rasmiga ahaa midna dokumentigu kuugu qoran yahay haddii kii dokumentiga kuugu qornaa lagugu meheriyo cidda ku mehersanaysa iyo cidda markhaatiyada ana iyo cidda weliga kuwa ana ay garanayso cidda aad tahay mushkilad ma samaynayso magaca la sheegay maka dokumentiga ku qoran baa mise waa kii asalka ahaa wax mushkila ma samaynayso muhiimaddu wax weeyaan cidda la guurinayo waa la garan markhaatiyaduna way garanayaan dadka meesha joogaan ka guursanayana wuu garanayaa magacanna waa magac muxuu ahay loo garanayo waa intaas muhiima aqdiguna waa asaxaya wallahu a'lam
maamada xanuunsanaysa ee xanuun uga tegay soonka haddana weli xanuunsanaysa soonkani hadduu soo galo oo ay haddana soomi kari weydo xanuun dartii way iska afuraysaa kadibna xanuunkeeda waa la baxnaaninayaa laba mid xanuunkaasi inuu noqdo xanuun rajo leh oo dhakhaatiirtu muujiyaan inuu rajo leeyahay ka caafimaadi doonto ama ka caafimaadi karto caafimaadka ilaahay baa haye hadday rajadaasi jirto oo uusan xanuun quusada ahayn way iska sugaysaa way iska afuri way iska sugi inta ilaahay ka caafinayo kadib way qallayn hadday caafimaado haddii dhakhaatiirtu ay muujiyaan xanuunkani inuusan rajo lahayn oo inuu ka sii daro mooye ka sorrayn uusan lahayn hadday muujiyaan markaa way iska afuri raashiin baana laga bixinayaa raashiin baa laga bixinayaa xanuunnada laga quustay aan lala soomi karin rajadana lahayn sidaasaa loola dhaqmaa beddelkii soonka raashiin baa gelaya ruuxuna laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha wuu iska afurayaa waxayna ka mid tahay taysiirka iyo fududaynta shareecadeenna ay ka mid tahay aadamaha iyo duruuftiisay la socotaa markay hawshu ku adkaato waa loo fududayn markuu cidhiidhi karo waa laga waasicin wahaakada iyadoo marka horeba diinteennu fududayd ayaa haddana markay ruuxa ku adkaato fudayd baa lasii raadinaya waa laga fududaynaya su-aasha labaad oo ah gabadha nuujinaysay bishii hore sanadkii hore sidaana soonku uga tegay haddana nuujinaysa maxay samayni haddayna la soomi karin way iska afuri ayaduna way afuri xadiid baa nas ku ah nabigeenna sal alla alay wasalam xadiidka anas bin malikin alkacbi wuxuu nabigu yidhi sal alla alay wasalam ilaahay haweenta nuujinaysa iyo midda uur kale wuxuu ka dejiyey soonka bimacnaa way iska afuri karaan laanna waxa weeye xaaladdaa iyada ah oo iyaduna way jilicsan tahay ruux bini aadam oo kaleoo jilicsanna wuu ku tacalluqaa ayadiina way jilicsan tahay waa markay uurka leedahay iyo markay nuujinayso ilmo yar oo iyada uun ku tacalluqana waa muxuu ahaay waa ku xidhan yahay maslaxadaasaa marka la fiirinaya marka way iska afuri hadhow markay jaanis hesho bay qallayni saasaa loo badan yahay ma wax kale laga rabaa aan qallo ahayn maya cala saxiix sida xoogga badan waxaa laga rabaa uun inay qallayso maalmihii ka tegay xilligay jaanis hesho xilligii ay jaanis hesho ayay qallayni insha allahu tacaala intaa un baana laga rabaa sidoo kaleeto haweenayda soonkii ka tagtay laakiin garan weyday saa umalayna soos maayn maalmihii ka tegey cadadkoodii garan weyday maxay samaynay waxay samaynay way ijtihaadi way dadaali maskaxday ka shaqaysiini way fikiri inay xusuustay isku day intay ka xusuustay qallayne intay xusuusatay qallayne kadibna waxay badsanaysaa soonka sunnada ah leanna sida salaadda ku soo aroortay waxa ugu horreeya addoonka laga xisaabinayo nebigu wuxuu aha salaadda sal alla alay wasalam hadday salaaddu u hagaagto addoonka wixii kalena waa u hagaagaya hadday salaaddu wax ka hallaabaan alla wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala fiiriya addoonkaygu sunno ma leeyahay salaad sunna'a ma leeyahay ma leeyahay dalika fadlullah soonka sunnadaa marka wixii salaadda ka khaldamay baa loogu buuxinaya marka cibaadaadka sunnada ah sunanka ah nawaafisha ah waxay kabaan waajibaadkay kabaan marka haddii intaad xusuusan kartana waad soomi wixii aad xusuusan weydana cibaadaadka soonka sunnaha ayaad badsanaysaa in sha allahu tacaala nacam su-aasha hore oo ah soomaaliya ma lagu ducaysan karaa salaada dhexdeeda waa masale khilaafiye wey masale khilaafiya haddii uu ruuxu luqadda carabiga garanayo
salaada dhexdeeda luqad aan carabi ahayn kuma ducaysan karo hadduu ducooyinkii carabiga garanayo ama waxa uu doonayo inuu ilaahay weydiisto uu luqadda carabiga ku cabiri karo marka looma ogolo luqad kale inuu salaada dhexdeeda ku ducaysto hadduusan garanaynin luqaddii carabiga ahayd ee uu ku ducaysan lahaa luqad kale ama soomaali ha noqoto ama ingiriis ha noqoto ama waxay dooni ha noqoto sawaaxili ha noqoto luqad kale salaada dhexdeeda ma ku ducaysan karaa waa mas'ale ay culimmadu iyo fuqahadu ku kala aragti bedelan yihiin waxaadna moodaa acdalu alaqwaal inuu yahay imaamu shaafici iyo aimo kala maray in ruuxa aan garanaynin luqadda carabiga luqad kale inuu salaada dhexdeeda ku ducaysan karo waa sax bay leeyihin ama soomaali ha noqoto ama luqad kale ha noqoto fuqaha badan baa sidaa maraya oo ka soo yacni u ruqsaynaya ama u oggolaanaya ruuxa aan luqadda carabiga garanayn oo dantiisii aan ku sheegan karayn laanna ruuxu waxaa la rabaa markuu ducaysanayo ducana waa duca caam ah oo jannada igee ilaah cadaabka iga badbaadi oo la qaban karo ducana waa duca khaasa dan khaasa oo kugu dhagan baad rabtaa inaad ilaahay aad weydiisato tabaaraka wa tacaala markaana luqaddii carabiga kuma cabiri kartid maxaad samayni waayo salaadana dhexdeedu khaasatan sujuudda waa xilliyada ducada la aqbalo almuhim culimmada qaar baa qaba inay bannaan tahay oo ay u bannaan tahay ruuxaan carabiga garanaynin su-aasha labaad ducooyinka qur-aanka ku jira sujuudda ma lagu ducaysan karaa nebiga sal alla alay wasalam horta wuxuu yidhi waxaa la ii diiday in aan qur-aanka akhriyo markaan rukuucsanahay iyo markaan sujuudsanahay markuu ruuxu rukuucsan yahay qur-aan ma akhrin karo ruuxu markuu sujuudsan yahayna qur-aan ma akhrin karo rukuucda nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam facadimuu fiihi rabb ilaahay ku weyneeye sujuuddana nebigu wuxuu yidhi sal alla alay slam ku ducaysta faqaminuna yustajaaba lakum waxay u dhowdahay in laydinka aqbalo amaa qur-aanka akhriskiisu waa markuu ruuxu taagan yahay ilan salaaddii qaybaheeda kala duwan qaybba waxbaa lagu aadiyey marka rukuucda iyo sujuuddu ma laha qur-aan akhris ma leh ayib ducooyinka qur-aanka ku soo arooray marka la sujuudsan yahay duca ahaan ma loo akhrisan karaa culimmada qaar baa waxay leeyihin haddii uusan qur-aan ahaan ula qastin ee uu duca ahaan ula qasto ducay markaa noqonaysa duca ahaan markaasi waa u akhrisan karaa bay leeyihiin wallahu aclam masale khilaafiya ruuxa dadka wax ka sheega oo ama culimmada ha noqoto ama muslimiinta kaleba ha noqotee ruuxa duraya wax ka sheegaya waajibku waxa weeye in loo naseexeeyo jariir bn cabdillaahi albajali radia allahu tacaala canhu wuxuu yidhi nebiga sal alla alay wasalam waxaan bayca iyo ballan kula galay salaadda inaan toosiyo sakadana bixiyo muslim kastana u naseexeeyo marka muslimku wuxuu kaa mudaya naseexu kaa mudaya gabadhaas ku fitnaysan culimmada inay wax ka sheegto hilibkooda ay cunto waxay kaa mudan tahay inaad u naseexayso oo aad wacdido oo aad tidhaahdo meeshani waa meel lagu baaba'o caammatulmuslimiin guud ahaan muslimiintaba hilibkoodu waa khatar haddana khaasada mu'miniinta kuwooda si khaaska ah culimmadu ka mid yihiin ducaaddu ka mid yihiin dadka cibaadada badan ka mid yihiin zuhaaddu ka mid yihiin
mu'miniinta khaasadoodu haddana waa ka sii khatarsan tahay yacni waxa weeye dad waxaa jira markaad agtooda ka dhowaato ilaahay uu dagaal kula galayaa jira man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb ilaahay baa dhahaya tabaaraka wa tacaala qaar waxaa jira haddayba ilaahay ay ku habaaraan oo intaad dulmido hal maray gacanta taagaan habaarkooda aan la soo celinaynin baa jira oo markaaba kula helayaa jira yaa marka addoommada ilaahay waa badan yihiin aakharaba intaan la gaadhin bay u badan tahay dulmiga iyo aflagaadada iyo cayda iyo xanta iyo waxyaalahan dadka aad u geysanayso inta badan aakharaba loo dibdhigi maayo way soo degdegi nabigeennu wuxu uhi sal lla alay slam laba dembi iyagoo aakhare kaydkoodu jiro bay haddana adduunka soo degdegaan waa qarabagoysnimada iyo baqyiga iyo gardarrada ma daahaan ruuxii oon adduunka ka tegin buu cuquubadeeda la kulmayaa cuquubada uu adduunka kula kulmayana ma aha tii aakhare in laga cafiyeye aakharana kayd baa u yaalla marka nasiixu u baahan yahay ruuxa noocaas oo kalea luxuum ulculamaa masmuuma yani waxay dhihi jireen culimmadu hilibka culimmadu waa sumaysan yahay ilaahayna caaduu leeyahay dadka culimmada wax ka sheega inuu ceebeeyo oo fadeexeeyo marka u naseexee hadday naseexada kaa diiddo ama naseexada ayna qaadanaynin intii dembiga aad la wadaagi lahayd ama u qosli lahayd ama aad u marxabayn lahayd ama adigoo dembigii dhacaya meesha aad joogi lahayd oo ka aamusi lahayd goo markaa iska eri haddaan waxba ka qaban karaynin ugu yaraan lafahaaga kala badbaad lafahaaga ka badbaadi markaasi laakiin waxaa ka horraysa inaad u naseexayso wallahu aclam meel walba ay tegayso socodkeeda inuu ogaado xuquuqdiisa miyay ka mid tahay haddii uusan weydinin iyada meeshay u socoto iyadeeda u sheegto laazim miya xuquuqdiisa miya nabigu sal alla alay wasalam markuu sheegayay xuquuqda la ysku leeyahay xuquuqda uu dumarku raggooda ku leeyihiin iyo raggu xuquuqda ay xaasaskooda ku leeyihiin nebigu sal alla alay wasalam waa qeexay haddii ay tahay dana guud haweenkii shareecadu waxay u idantay inay danahooda u bixi karaan kama fi saxiix nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam ilaahay wuxuu idiin idmay inaad danihiinna u bixi kartaan buu idiin idmay marka haddii markaasi aynan xumaan u soconin oo aynan fasaad u soconin oo danihii guriga iyo muxuu ahaayey masaalixdii nolosha ay u baxayso bixitaanka caadiga ah waxba laazim ma aha waxba laazim aha leanna haddii la yidhaahdo bixitaan kasta waa in ay ninka idan weydiisato xaraj baa ku jira cidhiidhi badan baa gelaysa sidaas daraaddeed waxaa uun muhim ah danta ay u baxayso waa inay tahay dan laga maarmaana dan guriga u baahan yahay isla markaana safar ayna ahayn magaaladii dhexdeedii ay tahay fasaad iyo xumaan iyo fitna ayna ka dhalanaynin wixii danaha gurigay u baxayso iyo masaalixda iyo wixii ku xidhan iyo wax mushkila ma leh si guudna ma filayo yani waxa weeye nin dhaxaya ilaaba kama bixi kartid guriga kama bixi karaysid laanna waxa weeye waa nooc taasi muxuu ahaay cadibaada waay nooc cadibaado suurtagal maaha noloba wixii yaa ku xidhan khaasatan hadda markii magaalooyin la yimid oo noloshii ay nolol isku xidhan tahay oo waxyaalo fara badan guriga u baahan yahay oo raggii in badan ay mashquulsan yihiin oo yani cidhiidhiga noocaas oo kaleeta ah maslaxo badan kuma jirto haddana gabadha muslimadda iyo hooyada muslimadda waxaa laga rabaa sida ilaahay qur-aanka kariimkaa ku sheegay waqarna fii buyuutikunna markuu la hadlayay nabiga xaasaskiisa sal alla alay wasalam markuu ilaahay ula hadlayo edbinayey oo aadaabta u dejinayey guryihiinna ku sugnaada walaa tabarajna tabaruja aljaariyati اluulaa yani wax weeyaan
in ay markay baxayaan ayna qaab xun u bixin haddaynan jirin wax dan oo ay u baxaan iyo inay gurigooda joogaan taasi waa mabda asalka ee loo baahan yahay gabadha muslimadda inay ilaaliso oo aynan iska noqonin iska wareegto yani macna la'aan iska baxda iska wareegaysata inaysan noqonin waxay u baxaysa inay tahay muhiimad inta kalena inay gurigeeda joogto wallahu a'lam ilmaha uurka ku jira haddii nabar gaadhay uu u soo dhaco oo dhinto nebigu wuxuu ku xukimay sal alla alay wasalam gurra cabdun aw ama yacni waxa weeye addoon ama addoon ayaa laga bixinayaa culimmadu waxay ku qiimeeyeen khulafada qaar ka midana ay fatwoodeen gurrada ama addoonka 5 neef oo geela waay bimacnaa 5 neef oo geela lagu qiimeeyey ilmaha isagoo uurku ku jira haddii nabar gaadho saab ku soo dhaco 5 neef oo geela laga bixinayo طيب wiil inuu yahay iyo inuu gabadh yahay nebigu ma kala qaadin sallallahu alayhi wasallam inuu wiil yahay iyo inuu gabadh yahay lama kala qaadin si xukumkaasuu nebigu bixiyey sallallahu alayhi wa alihi wasallam sidaas daraaddeed 5 neef ee geela ah ayaa lagu xukumayaa hadduu kama yahay uusan kas ahayna caaqilada iyo qaraabada bixinaysa magta iyada su'aasha xigta gabadha gaaska la soomila gaasku waa noocyo dadka qaarna iyagoo qabay la soomi karaan haba ku rafaadeene dadka qaarna lama soomi karaan haddaadan la soomi karaynin waad iska afuri xanuunkaasi hadduusan rajo lahayn dhaqaatiirtu yidhaahdaan rajo male inta la ogsoon yahay inaad ka caafimaaddo uma badna hadday ku yidhaahdaan bil kasta iska afur raashiinna bixi hadday waxoogaa rajo kuu muujiyaan inaad caafimaadi kartana iska sug inta aad ka caafimaadayso markaasaad qallayn insha allah taala haddii ilahay ku caafiyo hadday ku dhammaato inaadan caafimaadayninna markaasaad wixii soon kaa tegay oo dhan aad raashin bixinay laakiin marka hore horta waa in la xaqiijiyo xanuunkani ma leeyahay yacni wax weeyaan daawo mise ma laha inta bini aadamku garanayo xanuunnada dhammaantood taasay ku salaysan yihiin hadduusan daawo lahayn lanana soomi kari waayo markaasi raashin baa la bixinaya waana iska afuraysa haddii uu rajo leeyahayna waa la iska sugayaa intuu kala caddaanayo ruuxuna waa iska afuraya xanuunnadoo dhan halkaasaa la marinaya wallahu aclam biyaha inta badan waa la iibsadaa oo dawladdu biyaha lacag bay dad kala baxaan hadday lacag kala baxaanna miisaanka ay ku soo qaadanayaan isagana lacag bay kala baxaan marka biyihiina iyagaa iibsaday diyaaradda u soo qaadaysa miisaankeedana ayagaa gatay wax loo diidaayey meesha kuma jiro
haddii loo diiday inay miisaankooda ku qaataan ayagu ay leeyihiin oo laga mamnuuco sidaana ay ku soo qaataan cid mayna dhicin cidna mayna xadin cidna mayna dulmiyin waxay iibsadeen oo xaq u leeyihiin unbay xaqoodii ku soo dhoofsadeen iyo lacagtay la baxeen iyo miisaankii ay diyaaradda ku lahaayeen intaas hadday tahay wax mushkilaa ma laha wallahu aclam سؤال جواب لكن سكول فيس بقى مركا سكول فيس كا مرنا بالميل ولا بخيا مرنا هل مرة ولا بخيا مركا هل مرة بحسه فيس كيرن يوم مركا بالبل وبحسه كل شيء بيصير مركا بالبل وبحسه كل شيء بقصور راس وزيادة بحس مركا كون كاس ربما ما الربا ما ribo maaha iskuulku lacag ma sarrifayo iskuulku wuxuu ku siinayaa adeeg buu ku siinayaa adeeg waxbarasho adeegkii waxbarasho ayaad ka iibsanaysaa haddii aad lacagta u hormarisana qiimo jaban buu kaa siinaya haddaad lacagta yaryaraysana waxoogaa wuu kugu qaaliyeynayaa waxay la mid tahay badeecada suuqa taalla haddii aad tidhaahdo haddaad kaash igu siinaysana waa 1,000 shilin haddaad dayn ku qaadanaysa ama dib iga siinaysana waa 1,500 way kala qaalisan tahay mushkilo ma leh beecul ajal baa la dhahaa dibdhigaasi ay badeecada wixii lagu iibsaday ay lacagtu dib dhacayso inay ka qaalisanaato midii markaa lacagteeda la bixinayay mushkilo ma laha sidaas daraadeed iskuulku inuu yidhaahdo haddaad noo yaryaraynaysana waa 10,000 haddaad haddana wada siinaysana waa 9,000 wax dhiba ma laha wallahu aclam جزاك الله خير الجزاء الشيخ سبحانه وتعالى ميزان حسنات وصغار كلمات كاس